السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي كسو دوادا برنامج كان إذن كاقا مقضى شاشة هوريتو aadna la yaabi doontaan insha Allah. waa barnaamij horay iga la yaabiyay war badan ha mabbuxshay ku soo dhawaada barnaamijka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu jirkeena u yeelay xubno badan waxaana kamid ah dhigta taasoo leh saddexda qaybood ee aad aragtay oo kala outer ear, middle ear iyo inner ear. balse waxa aad u muhiimsan in aan ka taxadirno qaybta loo yaqaano inner ear kaas oo markaasi hadalka markaasi uu qaado. inner ear waa markaasi qaybta gudaha ee dhegta qaybtaasina waxa ku yaala xubkaas yar ee aad u jeedid markay hadalka galayaan sida taas uu markaasi u dhaqdhaqaaqa. xubkaasina waxa la yiraahdaa inner drum oo loola jeedo gurbaanka dhegta. waxaan aragnaa sameecadaha waaweyn markaasi shaqeynayaan in wax saas oo kaleeto aan ku aragnaa oo saas oo kaleeto markaasi u dhaqdhaqaaqa. haddaba dhegteena waxaa ku yaala xubkaasi kaasoo nolol doonayo inaan si fiican ugu taxadirno. haddii aan Soomaali nahay dhegta ayaana cuncunta kadibna waxaan ku walwalaaqnaa qoryo oo waliba aan soo gadanaa si markaasi aan kala soo bixino bahalka loo yaqaan dhukayga ee dhegteena ku jira. haddaba qolada caafimaadka ee biology-ga waxay sheegayaan in dhukayga uu caafimaad u leeyahay dhegteena wuxuuna ka difaacaa wasaqda banaanka kaga imaada. sidoo kale xubkaasi ayuuna difaacayaa dhukayga laakiinse anaga waxaan u isticmaalnaa inaan ka soo bixino waxaase halis ugu jirna in xubkaasi naga dilaaco kadibna aan dhaqano dhagoolo. waxaad aragtaa dad badan oo markaasi si lama filaan u noqdaan dhagoolo. haddaba waxaan filayaa inaad videogan aad ka faa'iiday aadna markaasi asxaabtaada ugu digi doonto dhukayga inay dhigta ka soo saaraan.